aniga waxaan goobjoog u ahay qarax markuu dhacay ilaahay dartii xaq Allah ka noolay maahane horta qaraxaas qof bini aadan oo maanta asxaan u sameystay ama loo sameeyay midna ma jirin qaraxa intuu san dhicin ka hor waxaan ka soo baxay shaqo oo meeshaan CID agteeda mootaan soo raacay أنا waxaan kamid ahay shaqaalaha miisadaha yar yarka ganacsiga meesha ka furiyaashi wax sameeyo mootadii markaan soo raacay mir mootadan faykonta ahayd anigu xuno waxa waday fudfudud qorsheentana waa dhaxdeganaa horteedana meeshaan ku ganacsanayna ahayd anigu waa ila dhaafay markaan wasaaradda arrimaha dibadda horteeda sii marayna waxaa yiri war guriga waan dhaafisanayo baawarkan weyn naga leexay ee celiya ari wasaaradda arrimaha dibadda horteeda ka soo leexanay meesha shaqaalaha ku degay wiilashii meesha fadhiyay inta badan waa dhinteen hadda wax nool waxba ka jirto oo inta markaas goob joog ahayd waa dad tirsamay laba qofood ama laba qofood mid dhaawac noqday iyo mid kale oo dhaawac noqdo asna turka hadda laga keeno joogo wax markaas caafimaad qabay oo Ilaahay u gargaaray inkastoo Ilaahay noo wada gargaaray oo dhib saas u san gaarin ana kamid ahay dadkaasan kamid ahay marka meesha ku degay shaqaalihii ay waxay yiraahdeen war engineer oo shaqa ka timid suuq waa anigu wuxuu yahay shaah noo shub gabar meesha fadhiso Allah u naxariisto dhimatay oo saacadii la dhahay waxa yiri tarmuus shaah dib tarmuuska shaah marka shubanay haaf oo aniga iga soo gaar anoo gacanta ku haysto wiil kamid ah shaqaalihi meesha fadhiyay ay aniga kuma jirin yaa adano dadka shaah siinaysid waxa yiri anaaba degdegsanay keega hoo cab kursiga oo ka kacay cabitaan horteena ahay aan istaagay galaas cabitaan aan ka cabay waa baxay wasaaradda qorsheynta dhaxdeedan deganay qorsheynta marka albaabka saas uga galay intaanan gaarin dabaqa oo xafiisyada iyo iridka inta u dhaxayso qarax ku dhacay marka qarax haduu dhacay waxa dhacday in aan afaf u dhacay nin gadaal looga yimid oo la tuuro kale indhaha kala qaaday adaan kor fiiriyay anoo dhulka jiifo waxa arkay meesha dhan oo mugdi gadaalan soo fiiriyay qaraxa isla markii holaca arkay iyo qiiq badan waa soo orday waxa meesha ugu soo noqdo aad ugu soo ordayna waxay ahayd walaalkay aniga daadii ugu soo xigtay wiil aan abti u ahay mida ilma adeernahay abtigay wiil kale oo adeer ah oo ahaa adiga inta xigaal ahaan ay xigtay oo 8 qof 7 qofood ah qaarkoodna ay kamid ahayn dadkii aan shaaha u shubay qalbigayga ku soo dhacay iyo meeshii ololeyso hadii aan imid orod aan ku soo galay meesha waxa uu imid dadkii oo gubtay meedadkii oo gubanaay in tareeso kor saarneed oo sigana hulcaayo waxaan aqoonsaday markaas waxa ka jirtay gabar Ilaahay u naxariistay oo meesha caano ku gadayso lugteeda qaybta hore aan ku arkay lugtii marka gabadha walaash islaantaas gabar ay dhashay iyo dad raadinayay ayaga meesha nagu soo aaray war kaalay lugtan tii saacadii ila egtay ila fiiriyay ciiday noqotay waa si argagaxay mar alla markaan si argagaxay waa soo orday guriga aada ay gashay guriga xaqiisa u soo orday guriga intaan soo guriga markaan galay hadana waxa Ilaahay ila kulmiyay gabar ayadana meesha kabar ku leedo shidaal iyo wax gadaysay qaarka iyadoo laba gabal noqotay macna saddex qayb ay noqotay laba qayb oo kamid oo guriga ii dhaxtaal guriga ku soo dhaxday anu meesha ugu dambeysay guriga gudaha u galay ilmihii waxa ugu tagay sagafka koreeshmintada ay ku soo fuqdo isku buuqsan oo midka ugu yarna uu suuxsan yahay anigu markaas oo waxa ii jiray yani dalana afar 12 biri ma dhameyn laba toddobaad ma dhameyn kiyo mir beelay oo suuxsan meena oo la ordo waa garan waay marka banaankan soo bixi waa in noqon wayso waa soo noqday mar labaad meeshan soo galay marka aan mar labaad qarax meeshiisa ku soo noqonay waxa hadana la kulmay nin gogo'ay yani iyo booski anaga aan fadhino shaaha aan ku cabayno markaas oo wiilasha hadana dib ina ugu raadiyo isku day waxa ugu tagay 2-3 meed ilaa 4 meed oo iskor saaran oo shakhsi ahaan qofku yahay aan garan karin ayaga dhan bislaaday dhinacooda waxa yaalay oo arkay hadana caasi ciyaal iskuulay wadi oo bajaaj kor saaran noo hasi kor saaran tahay ani baawur la isku raseeyo kale waxa soo galay qolada oo ishaga aan ku sheegay bishacas oo ambalaasida ay yimideen iyo dhalinyaro badan oo loo kala harin meesha lagu soo faktay wallahi waxa arkay meed gubtay oo soo qaad isdaanay oo gacankiisa uu noo siibnay nadartaay gacantii aan ka qabanay ii siibantay arkay yani soo bislaaday leh hotel kan safari
aan noogu sii darnaay oo dhaawacyo laga soo bixinay dukaamada hotel safari intiisa ku yaalay waxaa dhigteena ku soo dhacday yani kaliya ma maqlin laakiin inkastoo la badnaay waxaa dhacday nin dukaanka uu ku soo dumay dhaawacii qaylinaayo dhismaha burburka ka hoos qaylinaayo anagoo kooxa inta qaylinay waxaan u wacnay cagaftii iyo qoladii gurmadka sameeynayay aan u wacnay alxamdulillah ilaahay wuxuu qadaray ninkii in cagafta ay sii disho cagaftii ka qaad dhagaxan kor u qaadaa niri ninka waa soo siibeena waayanu yiri gadaal uga kala baxnay gadaal u soo bixiyay dhagaxii saarnaay ma qabsiinina qofkii ku qabtay dhagaxa ninkii dhaawacaan rabin inaan badbaadino sakiintii waxa lagu qabtay oo cagafta ninkii meesha ugu war dambeysay dhaameedkiisii aan soo bixinay adiga dhibaatooyin aad u badan oo hadda aan la tiri koobi karin meesha waa kula kulanay fadhigaas horta waxay dhamaayeen magac ahaan hadda inaan u tiriyo ma jecli laakiin 8 qofood waa hubaa oo inta shaaha iga cabtay waa mugtahay ilaa 8 qofood waxaa gadaal ka yimid midka aniga ila dhashay daadii ugu soo xigtay oo ka shaqeynaya Tobash Bondere wuxuu u soo baxay kaliya dhalinyarta shaqaalaha meesha ay isla baashaali jireen shaqadii wax yar fasax ka helay inuu intii yimaado koob shaah cabo shaqadiisu ku noqdo qadarta rabbiga ku timid dadku wuxuu ku jiray meedkiisa ilaa iyo hadda aan la helin laakiin markuu gaariga DL ka soo degay ninka ay islaameen asagoo xabad sambuusa oo baar fatxi ka soo qaatay wuxuu ahaa shaqaalaha u shaqeeya baar fatxi waa uu waceen koob adiga wuxuu ka soo qaatay xabad sambuus asoo duuban yahay ninka ay isku salaameen meesha baabuurta laga raraay waa abtigay waa dhaawac hadda waa joogaa lugaa ka jabtay lugna adi labada lugooda dhaawac weyn ka gaaray mid waa jabtay midna hilibka saydka oo dhan ka go'ay ninkaas ay islaameen oo yiri warahay maxamed waxa xagee ku socotaa meeshana shaah ka soo cabaa sambuusa buu wadataa qoladan aan ka soo qaatay yiraan u shaqeynay shaah rabaan ka soo caban shaqada ku noqdo abtigii sariflaha zooba hortiisa markuu taagan yahay qarax dhacay meeshuu ku dhacay asaga aniga aadan ahaan waa ii maqnaay ninkaas ila dhashay shaqadaasan ku ogaa waa ii maqnaay markii ninkan abtigay uu dhaawacmay ee telefoonadina ay bixi waayeen nus saac ama saacad ku dhawaad kadib telefoonada la helay abtiga uu ani soo wacay oo yiri aadan maxamed meedkiisa ma heshay inta diiday waa taag والله إلا هذا marka la wareesto aragtidii ugu dambeysay soo xasuusta marka mid aan hadda ma aragti sheegi kara ma aha waxa iga sii dibadneed umada meesha hadda nala joogto suuqa joogtay waxa jirtay rag yimid oo dhalinyaro badan oo yimid waxa jirtay dadka sidan oo kale wax u qorqoraay dadkii markay noo yimideen waxa dhacday magacyadii dadkii wax badan aan ka sheegno meesha alxamdulillah horta maal adduun waxay tahay malaha laakiin aaqiradooda ninka ku dheelasay u taala maalinkaas aniga hebel ma dhahayo kulay hadii uu imaqlan waa iska si doona ayagoo dhowr qofood ah inta magacyadaas ay qorqorteen markii ummadda muslimiinta ay wax baxsanay hoteelada qaar ay dadka ka waceen nin maskax aan lahayn aabahay aniga dhalay oo 114 sano jiro maalinkaas waalid uu ku qaatay hadda dhow isbuuc ma joogno waalid aabahay maash uu ku waashay isbuuc mid sariirtu fuul aad ku dhintay alxamdulillah waa horta wax noo qornaa Soomaali asxaan dad u sameeyay waa la dhaha laakiin wax asxaan la yiraahdo ma jiro asxaan waa sameeyaan laakiin waxay asxaan u sameeyaan qabiil iyo maaragtay hebel aan aqaan runtii markaan isu sheegno aabahay oo cimrigaas jiro markaan celin waayay yiri ilaa meedka wiilka halay soo tuso aan soo waday xafiiskan wasaaraddan arrimaha wasaaradda beeraha ma ma qaan meel gurmad qaran ay teendooyin ka furnaa CID horteeda arkaha isaamaha waxa dhacday in nin askari ah anu leef garaac ano dibkaas tabanayo waayeel wado ule bal igeeya dadka wax sheegay ama wax qoraaya kaliya aan u tago wiilkayga oo quusto odaygan wado aan la war odaygan intuu maskaxdiisa aysan wax u sii dhimin fasaxa wax leeka soo qorqoraha ii degsadeen in qorid baagis liifkiis laba mar garabkan la iga dhufto taas jisadeeda ilaaha siina inuu noo leeyahay in kala hadaba ma sheegi kara ninkaas alxamdulillah meeshii wax kasto ay aatabo
waa soo moodnay wallahi horta calool xumo aad u weyn aan dareemaa shaqada aan meesha hadda isgooska soo baa u joognana ma ahan waxbaad ka helay يعني waxaa dhibaatooyin aad u badan aan weystii qaraxa waxaa nooga sii weynaatay annagoo hantideena ku burburtay aniga kaliya waxa ku lahaa 3 tabakaaya 4 ilaa 4 miisadood oo wiilasha saddex dhintan ku sheegay aniga aan dhaqaa wax siiyay oo ribal nolol maalmeed ka raadsada meesha aan wado miisaskii iyo tabakaayooyinka meesha noogu dhisnaa waxaa dhacday in hadda dib markii loo suuq dib loo furay in la yiraahdo miiska ma fariisan kartid adin ma lihid inta dhan lagu ma shaqeynaayo in la dhaho maalmo kadib haddana nala yiraahdo nin walba waa in ninka meesha mi soo dhiganaa $100 aan ka rabnaa ciidanka isgooska la soo fariisay inay dhaxaan $100 ninkan dhiibayna ma fariisanayo haddii aan reer magaalnimo iyo tuugtin isku darnay oo ninkii hal qofood hal miis ku lahaa eber la soo dhigi kii laba ku lahaana $50 ani inaan $50 dhiiba hal miis leega siiyo qorsheynta afkeeda hore maalmo kadibna qorsheynta waa la dhisaa in la yiraahdana laga soo kiciyo meesha suuq waa iska joognaa oo dhacaankeena ku baxay hungurigan ka baranay aan u dhaxta taaganahay maayne dadka maamul ahaanta suuqaas Zoobe maamulo waa dad dantooda u shaqeysto runtii markaan ku sheegay aniga ilaaha cabsi ugu leh hadaadan bixinin يعني $50 ama $60 ama $70 aan laga qaadin ninkan shalay meeshan fadhin jiray aga dhinteen ama wax uga dhaawacmeen laguma dhahayo wax la siiyo waa inaad la baxdid lacag $50 tii haddana waxba ku sii weysanahay oo inaan hadda lacag baxsano miiska inaan soo dhigan ciidan naftirkeed waxba kuma hayno ayaa dardaaranka jeedinaysa wax dardaaran oo horta aniga warkayga lama maqlaaye in ummad muslim oo saalix oo aqli oo ilaahay iimaanku u soo celiyo in ummadda dhan ilaahay ka dhigay kaliya ku dardaarma haddii aan iraahdo hebelow saan yeel cid war iga maqlayso ma laha hebel adigana saana fiican saan yeel cid war maqlayso ma leh laakiin ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo warka meesha in lagu koobaado Qur'aan